qaraxyada u dhaca sida maalinlaha ah, weerarada ismiidaaminta ah iyo weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho ayaa muujinaya in wali Soomaaliya aysan ka maarmi karin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo dawladda Soomaaliya ka caawiya dhanka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mucaaradka ah. sanad walba qaramada midoobe iyo beesha caalamku waxa ay kordhiyaan waqtiga howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyadoo ay sii kordhayaan qaraxyada ismiidaaminta ah iyo weerarada tooska ah ee ka dhaca Muqdisho tan iyo markii qaramada midoobe ay bilowday in ay dhinto tirada ciidanka AMISOM ee Soomaaliya sanadkii 2017. qaramada midoobe waxa ay damacsan tahay dabadana ka riixaysaa qorshaha Soomaaliya looga saarayo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxa ayna daneynaysaa in amniga Soomaaliya lagu wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliya. ajandaha lagu dhimayo tirada ciidanka AMISOM ayaa noqotay mid heerkeedu sareeyo markii ay dhawaan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii hore ee dalka South Africa Thabo Mbeki oo xubin sare ka ah midowga Afrika ay ku kulmeen aqalka dawladda Uganda ee Kampala. labada mas'uul ayaa kulankaasi uga wada hadlay ammaanka, dhaqaalaha, caqabadaha siyaasadeed ee ka jira wadamada Geeska Afrika sida Djibouti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya. Henry Okello Oryemba oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Uganda oo qayb ka ahaa kulankaasi oo la hadlay wargeyska The Independent ayaa sheegay in qorshaha qaramada midoobe ee AMISOM uu ka soo horjeedo nabadeynta Soomaaliya. beesha caalamka arrimaha dhaqaalaha awgeed waxa ay doonaysaa in dhimista ciidamadu ay si dhaqso ah u dhacdo, laakiin haddii ay taasi dhacdo waxa ay dhaawacaysaa guulaha ay gaareen AMISOM. waxa uu sheegay wasiirku in qaramada midoobe ay ku riyaaqayso in ay aragto ciidamada Soomaaliya oo ammaanka dalkooda la wareegay, balse taasi hadda ma ahan mid dhici karta. ma cabanayno, laakiin waxaan ka walwalsanahay awoodda ciidanka qaranka Soomaaliya haddii aan gacanta u gelino ammaanka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka. inkastoo AMISOM ay tababarayso ciidamada xoogga dalka, tiro badan oo ka mid ah ciidamada waxa ay u weecanayaan ku biirista dagaalyahanada Al-Shabaab, ayuu yiri wasiirka. AMISOM waxa ay Soomaaliya ka howlgalaysaa in ka badan 12 sano, waxa ayna gaartay guulo la xusi karo, balse wali waxa ay ku howlan tahay raadinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 22,000 oo askari. ciidamada ugu badan ee ka qaybta ah howlgalka AMISOM waxa ay ka soo jeedaan dalka Uganda, waxa ayna tiradoodu gaaraysaa ilaa 6,000 oo askari sanad kastana. waxaa loo soo magacaabaa taliye cusub, iyadoo hadda uu taliye u yahay Major Kabongo oo la soo magacaabay bishii December. wadamada kale ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay kala yihiin Kenya, Burundi, Ethiopia iyo Djibouti.